war degdeg ah wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ciidan ilaalo uu ahaa iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo israasaaseen ay goordhow ku dhaxmartay magaalada Muqdisho qasaare intee leeg ayaa ka dhashay muuqaalkeena ayaynu ku soo koobi doonaa waxaana Yuusuf Maxamed Axmed hadii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biir page-kayga oo ka mid noqda saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaal aan halkan idinku soo baahiyo had iyo jeer waxa goordhow qayb ka mid ah wadada Makka al-Mukarrama gaar ahaan goob aan sida uga fogeen isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho gaar ahaan halka la yiraahdo Hargaha iyo Saamaha israasaaseen ay ku dhaxmartay ciidamo staff u ahaa ama ilaalo u ahaa wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Beene iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad halkaas oo bar control ay u taalay waxa la sheegay in ciidanka ilaaladu u ahaa wasiirka iyo ciidankan oo bar control halkaas u taalay ay soo kala dhaxgaleen muran waxa si xigtay rasaas ay ooda isaga qaadeen labada dhinac waxaana halkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac mid ka mid ah askarta ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliiska Haramcad ayaa goobtaasi ku dhaawacmay waxaase halkaasi ku geeriyooday qof shacab ahaa oo wada ka ahaa gaadiidka qaada dhagxaanta iyo carrada ee loo yaqaan caragadiska xaaladda goobta ayaa waxa ku baxay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya waxaase hadda lagu soo waramayaa in isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha goobta israasaasenta ay ka dhacdo oo muddo kooban xayirneed dib ay u furantay waxaana jira imikan dadaalo la doonayo in lagu soo xiro askartii israasaasentan sababta u ahayd oo ay wadaan hay'adaha ammaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dhowr jeer hore Muqdisho sidan oo kale israasaaseen waxa ay ugu dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo qaarkood mas'uuliin dawladeed ilaalo u ahaa iskastaba ha ahaatee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo dhawaanahanba amnigeeda ay si weyn u adkeynayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn ugu soo kordhaya goobaha lagu hubiyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxayse keentaa mararka qaarkood in caqabad ay soo kala dhex gasho ciidamo hubeysan oo isticmaalaya wadooyinka caasimadda iyo kuwa ammaanka oo baraha control ay ku sugan yihiin doonaya inay si awood ah ay ku jiraan waxay warar ay ku soo kordho warkan halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa